بسم الله الرحمن الرحيم. عشركن وحوي مانتا سيديتو لو قلنا سؤالك إنه استعمالنا MVC وحي فاهمين وحنا غلط حيل تونتان سمتك توني gmail.com وحنا بلاورنا نيو بروجكت ويب باتورنسا سبيرلو ويب ابلكيشن مقعنا كبدلنا وحنا لا بحنا ماي بيزنس اوكي MVC باتك سارسا جان جاوثيكيشن نا اوثنتيكيشن اوكي حقا هوستيغا تيتو سارنتا واد قادسا اوكي من هنا اوكي نيو فولدر بس مثلا رايت كليك اد نيو فولدر فيو موديل اسمه بحيثونا اوكي رايت كليك نوسي اد كلاس نوغو در استعمل نوغو بحي اد بندا هنا halkaasaynu ku qoran doonaa waxayna prop tap id halkana waxaynu ka dhigan doonaa sirna kala bixi doonaa alaabta magaceeda oo kale اوكي mid kale noogu dar prop tap sinister nooga dhig ama integerka noogu daa waxay nooga dhigtaa inta xabo okay prop sina integer noogu daa waxay nooga dhigtaa lacagta halka xabo okay right click waxaan iska dadgalayna home controllerkaas viewgiisana iska dadgalay right click second lede okay imika noo soo daba add controller MVC empty controller baa dhacaysa add baa dhacaysa magacooda la baxaysa intaada buu inoo olisa home inoogu bixi add mandahana intaas home noogu bedel sagaalka marka ugu horeysa meeshaan ka soo kicdana project-gan ka dhigan doona right click add view isaga meel waxba ka soo akhrimayno home kawda layout kan hay isticmaalo tigta saar haday ka qaadan tahay add okay waka view gan leeyahay dhex joogna halka message-keeda ka saaraysa hadaba waxaan dhahaynaa ku soo dhawow business okay control shift B baan idhi ama build baa dhahaysa succeed garoobay kaasaan taabtay control shift B na waa raacin kartaa debug start without debugging okay waa home page ini kusoo dhawow our business share kan tagi doonaa layout-ka isagana wax ka bedeli doonaa magaca application name-ka ka bedelayna waxaan ka dhigan doonaa magaca Somali Tech baa inooga dhig company
inoo soo galay home-kana soo noqonaata ka Somali Touch. meel khaldan buu nagay meeshu haysaa khaldan tag home-ka indexka inagoo ma home buu inoo yahay waan soo gareynay iminka eegno meesha tago home control nagu celi waxaanu samaysan doonaa kii inoo soo akhrin doonay text box-yada insha Allah oo default ahaan u haysta http get insert banu la baxnay return view build ama waxaad tegi kartaa control shift p right click nosi add view insert to template banu dooranaa oo create doori doona modelkaas ka soo akhrisanaya waa astaamo waa kii aynu samaysanay okay add badaysa kadaynu debug gareyno text box inoo soo bixin laakiin imika wax data ma qaadayaan halkaas intaas class-ka yar bedelayna sarta astaamo horta inaga masaxyada sartigana waxa kale inoo qor okay kayd gareynta كاي وكاسب عكيد كريت على خلاص بين كترني alerti success inoo dhig refresh kare kalarkiinu ka bedelay kan eegnayn wax keenayo ma keenayo already waya waxa kumaan xilin kumaan SQL la hadlay halkaas inoo yeeri doona layout kan tagi doona gabot magaca inooga bedel karta kaydka alaabta inoogu bixi kaydinta alaabta karena kayak kalau tuh nori kayak talau control kita gitu na entah yang like mana sama na opasti gino kalau tuh iyadoo la keenay http bas noqoto telegram में सेव कॉपी करें इन्हों टाइटल का और क्लास के दिन आजी प्रॉपर्टी के वेरिएबल दा अस्थानो
variable kaynu ku dhabeeyay halka falaadha soo furaysa using my business view models class kaas meesha ku jiro folder ka way ama directory. Okay, halka sare noogu sameeyay if model state hadii yani marxaladda modelka daytada kan wax soo qaada marxaladiisa wax laga helo koodhkii marka halkaas u dhiiban doona waxaanu soo qaadi doonaa kaaskii inuu hayay wixii daytada ah kaasina repository majority loola baxo repository khasama ina repository la baxdid magaca dunida la bixi kartaa haddii iminkayna waaynu iska dayna ku kala wala baxano xogta waynaga taa db kon inagu bixi يعني database connection. Okay, using system dot data dot sql client SQL connection kan SQL new SQL connection kasino kashantena wixii data source initial catalog oo database kina noqon doona integrated security laga dhigi doona true data source kana noqonaya server kana SQL ka magaca uu haysto hadba wixii qofka ugu qoran soo koobaysanaya ka copy aniga Mustafa ay qoran copy paste baan ku leeyahay semicolon kaga soo xidh initial catalog okay database aan samaysan doonaa create database loola bixi doono waxaan la bixi doonaa Somali Tech. Okay, execute. Okay, we know execute groupay magacaynu copyaysanna oo inoo noqon doona initial catalog. Okay, integrated security alamid ah true semicolon حاجة تمام semicolon nagu soo xidh okay waxaynu samaysan doonaa methodkii internal void waxaynu la bixi doonaa magacaan doonayno oo inoo caddaynaysa inuu yani xog halkan wado aynu la baxno xog gelin waxaynu u dhiiban doonaa classkeeni astaamaha oo property-geenu hayay rename node inuu soo copy garay magaciisa halka paasi nagu dheh okay variable nagu dhig horta meeshu ka soo kharsanaya view model ilaa classkeeni maaqon kii hore sheegay waxa home controller-ka AST baan iskaga dhibanay oo astaamo la soo gaabiyay waxaad inta u dhiiban kartaa variable-ka ka dhigi doontaa okay SQL command baynu samaysanaa variable baynu dhiiban doonaa com command inagoo soo gaabsanay aduu waxaad inta ka dhigi kartaa new SQL command halkaas waxaan dhex dhigan doonaa koodhkeeni inoo geynayay database-ka xogta connection inaga soo xidh semicolon okay table-ka baynu samaysan doonaa hadaba iminka use something database-ka horta isticmaal iminka master baan isticmaalnaa waa admin-kii okay tarada create table
magaciisa waxaynu la baxaynaa alaabo. Okay, kalamad baynu samaysanaa hadaba. ID, integer, primary key. Okay, identity baynu ka dhig in isagu seeding la sameeyo. Isagoo automatically ID inoo sameeyo. Inaga aynu qaadan inaynu soo gelino. Okay. Halkan waxaan ka dhiganaa item key alaabta magaceeda. Waxaanu ka dhigan doonaa Parker say tahayba. Ha noqoto xarfan iyo numbers ku jira ka koobnaato. Okay. waxayna ku daran doonaa quantity oo inta xabo iyadana integer inooga dhig. Okay, price kii baa yimi isagu muxuu qaadan doonaa money lacag weeye. Okay, execute, select all from that table ka magaciisa. Okay, waxa kuma jiraan iminka waxaynu ku noqonaa projectkeeni. halkan baynu dhihi doonaa insert code inoo keeniyay table-keena data baynu qoran doonaa. xalaab la gelinayaa baakna soo kobaysanay table-kii alaabo values la gelin doonana waxa weeye parameterized query baynu ka dhigan doonaa insha Allah. waxaa la gelin doonaa add item kaas waa parameter, kana waa parameter sidoo kale quant qt waa loo soo gaabiyay, kalena waa price qoyskiina soo xid. Okay, aanu qorana parameters iska hadaba com dot parameters com da kiino ay code keenan data xageynaya insert kana sameynaya command dot parameters dot add with value. halka parameter ka wada dhigan doona oo ah ka hor kale item. Okay, item kan isaga already marka la geenayo database ka meel wax ka soo akhrisanaya. astaamaha waxaa jiray class-kii astaamaha la dhihi jiray oo inoo hayn jiray inoo hay waxyaabo ka koobnaan doona text box-da kii marka inoo sameeyay oo magacyadiisa inoogu keysay. bahalka magaca leh inooga soo qaadin ku dhahaynaa sida halka inoogu qoran property astaamo dot magaca alaabta indhihi doona inagu. magaca alaabta click nosi kuwa kalena sidoo kale baynu qoran doonaa iyagana command dot parameters dot add with value. qoyskana for parameter kana weird kana ku xigana weird ah quantity. Okay, meesha data la geenayo meesha laga soo akhrin doonaa meesha la yiraahdo inta xabo text box-ka name-kiisu yahay inta xabo bacniya laga soo akhrinayaa. Okay, command dot parameters dot add with value. Okay, parameter kan kale inoo hadhay meesha soo qaadan doonaa oo ah price. halka inoo geli meesha ka soo akhrisan doono waxa ka soo akhrisan doonaa text box-ka ama field-ka magaciisa la yiraahdo lacagta halka xabo baan name ah meesha wax ka soo akhrisanayo. inaga marka hore soo samaysanay waxay noo hadhay already execution keena sameeyno connection kana inoo furano command dot execute line query ina sahid function name function calaamadi function ka. Okay, connection dot close. Okay, hadaba waxaanu inoo haray inaynu controller-ka action-ka inoo dhex yaalay aynu u yeerno method-kan inagoo name-kiisa ugu yeerina home control-ka tagi doonaa halkaas inuu ku yeeri doonaa. marka hore waa inay samaysanaa variable
inooga soo qaado in aqoonsanayo inuu jiro DP connection kan magacan meesha yaala inooga soo akhrin doona waana u yeedhi doonaa DP connection kibanu yeedhi doonaa DP kan waa kalaaskii jiray inoo hayay methodist kan xagga database kana u xidhaya report baynoo bixinay oo register loo soo gaabiyey new DP con bintayna inoo soo xil qowskiisa haddaba ma garanayo soo garto meeshu ka soo akhrisanaya directory-ga sheegana wuxuu isticmaalayaa business my business dot models okay already ku daray waa aqoonsaday iminka haddaba methodkani baynu yeelan doonaa waxaan dhihi doonaa repo dot xog gelin oo ah kii inoo hayay insertion keena oo kan ahaa internal void ka haystay okay halkan waxaan dhex galin variable-kii astaamaha inoo hayay semicolon keena ugu soo xidh iminka bildi kare okay build control shift p na waa dhihi kartaa succeeded uu fuliyey okay aynu dibba garayno control f5 na waa taaban kartaa oo error buu haystaa initial catalog l baynu ka tagnay catalog baynu qornay initial catalogna waxbaynu ka qalanay oo l baa ka dhiman meeshay nagu dar catalog iminka insha allah errorkuu ka bixi doonaa inoo bildi garay wixii class ah waa la bildi garaya wixii html koodna waa la save garaya iminka inoo refresh garaya already wuxuu eeg meeshuu ka soo akhrinayo baan jirin oo wuxuu inoo haystaa automatically file buu haystaa hore u jiray magaca iska haystaa oo abstract inoogu dhex jira route config inoogu dhex jira index buu haystaa automatically marka wax la ran garayo class dhex joogtid haddii kale uu ka soo kacay kii bilowga ah home baynu ka dhiganay ka ugu horeeya ka soo kacay inaga inoo samaysnaa start without debugging bayna way inoo soo kacay okay iminka mar walba home ku bilaabmaya inagoo mar kayli joogno ku waxayna mooyaane okay iminka aynu eegno inuu data gelinayo laptop okay inta xabo afar xabo inoo yaala lacagtoodana waa maxay waa $250 oo kale save aynu nidhi already aynu eegno select all from alaabo execute baynu nidhi way taalaa diitadii caadi u SQL-ka iminka u geeyey waa inooyo casharka kan xiga insha allah iyo is aragti dambe waxaanu idin leenahay mac salaamo information samtech 22@gmail.com noogu soo dira